marka aad tahay askari u dhaawacmay qarankiisa waxaad xaq u leedahay inaad hesho daryeel caafimaad iyo ka warqab kaaga yimaada bulshadii iyo qarankii aad u dhaawacantay balse sheekada laba xidigle Cabdirasaaq Xuseen waa mid ka duwan dhacdooyinkii hore loo arki jiray. Cabdirasaaq Xuseen Maxamed waxa uu ahaa taliyihii saldhigga booliska degmada Xamarweyne ka hor intuusan dhulyaal u noqon dhaawac halis ah oo ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah oo uu kaga hortagay si uu u badbaadiyo shacabka degmada Xamarweyne ee uu mas'uulka ka ahaa iyo boqolaal u soo adeeg doontay suuqa Xamarweyne. 24kii bishii labaad sanadkii 2021 xilligii dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu taliye Cabdirasaaq ku dhaawacmay qaraxaas oo ka dhacay afaafka hore ee City Mall una fulin rabay nin naftiis haliga ah balse taliyuhu uu isku duubay kana badbaadiyay bulshada. intaasi kadib waxaa taliyaha soo gaaray dhaawac xoogan kadibna waxaa la dhigay isbitaalka Digfeer oo uu ku jiray habeen iyo maalin balse dhaqaatiirtii ayaa u sheegay inaan dalka waxba looga qaban karin waxayna dowladii xilligaas u qaaday dalka Turkiga iyadoo la dhigay isbitaal private ah balse nasiib darro taliyaha oo soo kabasho ku jira ayay ku dul dhacday dowladii xilligaas waxaana talada dalka la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdirasaaq maalintaas ayaa ugu dambeysay inuu helo daryeel dowladeed waxaana gabi ahaanba lagu dalaacay qarashaadkii isbitaalka iyadoo safiirkii Soomaaliya ee Turkiga uu si cad ugu yiri niyahow iska bixi lacagta isbitaalka waxba kuma hayee. Cabdirasaaq ayay ugu dambeyn ehelkiisu ka soo saareen isbitaalkii waxaana la dhigay gurigiisa oo ku yaalay carwadii hore ee qaranka balse iska badaa daryeel uu dowladda ka helay gurigiisii uu dhex yaalay dhaawiciisa ayaa cagaf la geliyay wuxuuna hadda barakac ku yahay degmada Kaxda iyada oo loo haysto kirada guriga uu degan yahay oo haddii uusan bishan bixin laga rarayo. sawirada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha booliska Soomaaliya Asad Cismaan Diyaano ayaa u suran sariirta madaxeeda laakiin taleefanada ayay ku dhageysteen wuxuuna quus ka yahay qarankii uu dhaawacmay iyo bulshadii uu badbaadadooda u naafoobay.